It has a president. It holds regular elections. Somaliland is located in a very stable. And those who will join us the illicit tomorrow. activities that China is doing. Mareykanku waa inuu aqoonsadaa Somaliland si looga hortaga xiriirada sii xoogeysanaya ee kooxaha Xuutiyiinta Yemen iyo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ama si looga hortaga qataraha sii kordhaya ee danaha Mareykanka ee gobolka. mar kale Mareykanku waa inuu aqoonsadaa Somaliland si looga hortaga isbalaarinta Shiinaha ee gobolka. dhammaan waa mowduucyada ugu waaweyn ee haysta warbaahinta caalamka bilihii la soo dhaafay. muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa suurtagalnimada in Washington ay ku dhawaaqdo aqoonsiga Somaliland. Muqdisho se ma ka hortagi kartaa 2025 in la dhaawaca midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta iyo barnaamijkeena diiradda. habka lacag dirista casriga ah ee Wire Nations waxay ku sahashay inaad lacagta ka soo diri karto dhammaan wadamada Yurub iyo dalka Canada. waxaadna lacagta u soo diri kartaa dhammaan dalalka Afrika adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta. haddaba ka mid noqo adeegsadayaasha abkan oo kala soo deg maantaba App Store-ka ama Play Store-ka mobilkaaga. xiriirka u bilaabmay ururada hubeysan ee Xuutiyiinta Yemen iyo kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ayaa halis badan iyo khatar amni oo waaweyn ku yeelan kara badda cas, gacanka cadmeed, bariga dhexe, Soomaaliya, geeska Afrika iyo isu socodka gaadiidka ee dunida. ururka xagjirka ah ee ugu halista badan qaaradda Afrika ayaa la filayaa inuu sii xoogeysto Soomaaliya, taas oo kor u qaadaysa cabsida laga qabo khatarta dhinaca amniga ee ku imaan karta marinada muhiimka ah ee bariga dhexe ee ay isticmaalaan maraakiibta ganacsiga, sida laga soo xigtay warbixin cusub oo dhawaan soo baxday. warbixinta ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta ay diyaar u tahay inay ka faa'iideystaan isbahaysi cusub oo ay la yeelato maleeshiyaadka Xuutiyiinta ah ee Yemen. waxa uu xiriirkan u suurtagelin karaa Al-Shabaab in ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaalada ridada dheer si ay ugu weeraraan maraakiibta ganacsiga iyo sidoo kale danaha Mareykanka ee gobolka. sida lagu sheegay qiimeyn ka hadlaysay qataraha argagixisada caalamiga ah oo ay sameysay xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS oo ay baahisay warbaahinta Middle East Eye. warbixinta ayaa Al-Shabaab ku tilmaantay awood jirta oo halis ku ah danaha Mareykanka, isla markaana ay u badan tahay inay sii korodho khatarteeda sanadkan 2025. iyadoo soo xiganaysa hogaamiye sare oo ka tirsan isbahaysiga la dagaalamaya Xuutiyiinta ee loo yaqaan National Resistance Front. warbixintu waxay sheegtay in kooxda Xuutiyiintu ay damacsan tahay sidii ay dagaalyahanada Al-Shabaab u siin lahaayeen hub casri ah si ay awood ugu yeeshaan inay beegsadaan maraakiibta isaga kala goosha gacanka cadmeed. Xuutiyiintu waxay Al-Shabaab siin karaan haddii aanay hore u siin qaybo ka mid ah hubka ay ka hesho dawladaha taageera. sidaasi ayaa lagu yiri warbixin dhawaan la daabacay oo looga hadlayay xiriirka cusub ee kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Xuutiyiinta Yemen. haddii aanu fahnay xiriirka Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta Yemen, haddaba aanu nimaana dagaalka gaadiidka badda ee Xuutiyiinta Yemen. in ka badan muddo sanad ah maraakiibta dagaalka Mareykanku waxay dagaal kula jiraan Xuutiyiinta oo taageero ka helaya dawladda Iiraan si ay u joojiyaan weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga. maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa bilaabay in noocyo kala duwan oo hub ah ay ku beegsadaan maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee maraya badda cas. wax yar kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil bishii Oktoobar ee sanadkii 2023, xilligaasi oo u bilowday dagaalka xilligan ka socda Gaza. Xuutiyiinta oo taageero u muujinaya Falastiiniyiinta waxa ay nidar ku mareen inay beegsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil ama xulafadeeda, gaar ahaan maraakiibta Britain iyo Mareykanka. inkasta oo qaar ka mid ah maraakiibtan la weeraray aanay wax lug ah ku lahayn dagaalka. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Al-Shabaab ay soo gashay arrintan waxay gaas ku sii shidi kartaa xiisadda cakiran ee lagu xoreynayo marinkan muhiimka ah ee Bab al-Mandab oo xiriiriya maraakiibta isaga kala goosha gacanka cadmeed iyo badda cas. haddaba maxay yihiin calaamadaha muujinaya xiriirka
xuutiyiinta iyo al-shabaab ee ay maraykanku muujinayaan. maraykanka ayaa sanadkii hore ka digay xiriirka labada urur ee fadhigooda yahay Soomaaliya iyo Yemen, kuwaas oo ku tilmaamay in ay halis ku yihiin caalamka oo dhan. toddobaadkii tagay taliyaha taliska ciidamada Maraykanka ee Geeska Afrika General Michael Langley oo hortagay guddiga hubka ee aqalka odayaasha Maraykanka ee sanadka ayaa mar kale ku nuuxnuuxsaday sida uu ugu walaacsan yahay xiriirka sii xoogaysanaya ee kooxda al-shabaab iyo xuutiyiinta Yemen. waxaa kale oo carabka ku dhuftay in kooxahan ay heleen hub isla markaana ay u leeyihiin inay beegsadaan danaha Maraykanka ee gobolka. Senator, al-Shabaab is especially a heightened terrorist threat, namely because they're colluding with the Houthis across from Yemen. And so we're watching that closely. The President and the Secretary of Defense has given me expanded authorities. I can talk about those details as far as expanded authorities, but I will say we're hitting them hard. I have now have the capability to hit them harder. xuutiyiinta Yemen waxay ka gudbeen weerarada maraakiibta ganacsiga ilaa iyo weeraro waaweyn oo isku xiran, kuwaasi oo ay la beegsanayaan maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga. waxaan aad ugu walaacsanahay tilmaamaha iskaashiga u dhaxeeya xuutiyiinta iyo al-shabaab. xuutiyiinta waxay leeyihiin awood ay ku weeraraan saldhigga Djibouti haddii ay go'aansadaan inay sii xoojiyaan weerarada Maraykanka, ayuu yiri generaalka oo ka hadlayay dhibaatada xuutiyiinta Yemen ay ku hayaan danaha Maraykanka ee gobolka. howlgallada militariga ee taliska Africom ee ka hortagga halista al-shabaab ayaa sanadihii u dambeeyay noqday dadaalada ugu weyn ee ciidamada Maraykanka ay ka wadaan qaaradda Afrika. Africom waxay qaaday weerar cirka ah oo ka dhan ah al-shabaab, waxayna ciidamo gaar ah u dirtay gudaha Soomaaliya si ay ula taliyaan tababarana u siiyaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee dadaalada noocan ah ma keenin isbedeladii loo baahnaa sida lagu sheegay warbixinta CSIS ee looga hadlayay khataraha kooxdan. sida warbixinta lagu sheegay kooxda argixisada ee al-shabaab waxa ay haystaan 7,000 ilaa iyo 12,000 oo dagaalyahan ah, waxayna maamulaan dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in ururka uu soo gala dakhli ka badan 100 milyan oo dollarka Maraykanka ah, taas oo ku soo gasha habab kala duwan oo ay ka mid yihiin canshuuraha, iyadoo sidoo kale warbixinta lagu sheegay in al-shabaab ay haysato dhaqaale ku filan in ay dhaqaale ku taageerta kooxaha kale ee xiriirka leh al-Qaa'ida. haddaba haddii aanu fahanay khataraha xiriirsan ee kooxahan ee gobolka, aanu fahanay dhaqaaqyada siyaasadeed ee Maraykanka iyo xulafadiisa sida Imaaraadka iyo Israa'iil ay ka wadaan gudaha Somaliland, ma horseedi karaa aqoonsi degdeg ah? tani waa su'aasha ugu mudan in la isweydiiyo waqti xaadirkan. geesta kale waxaa laga degayaa khataro kale oo ay keeni karaan dhaqaaqyada siyaasadeed ee muddooyinkan dambe ka socda Geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland oo Maraykanku uu doonayay inuu u aqoonsado dowlad madax bannaan si danihiisa ugu fushado gacanka cadmeed iyo Geeska Afrika. Imaaraadka Carabta ayaa dilaalka ah in Maraykanku uu aqoonsado Somaliland xilli Abu Dhabi ay malaayiin dollar ku maalgelisay dekedda Berbere ee Somaliland iyo saldhig military oo ay ka hirgelisay magaalada Berbere. warbixin kale oo lagu daabacay WhatsApp ayaa lagu sheegay in gobolku uu leeyahay meel istiraatiiji ah oo u dhow gacanka cadmeed, taasoo u adeegta marin muhiim u ah maraakiibta u socda kanaalka Suez iyo Yemen. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Yemen sanadkii 2014 Imaaraadku waxa uu isku dayay inuu ballaariyo saameyntiisa Geeska Afrika si uu uga hortago xukuumadda Sanca. sanadkii 2016 Imaaraadku waxa uu saxiixay heshiis ay ku kacaysaa 442 milyan oo dollarka Maraykanka ah oo lagu dhisay dekedda magaalada Berbere ee Somaliland, taasi oo 260 kiiloomitir oo kaliya u jirta magaalada Cadan ee dalka Yemen. sanad kadib waxa dekedda magaalada Berbere lagu kordhiyay saldhig ciidamada badda iyo kuwa cirka ah, kaas oo qorshuhu ahaa in Imaaraadka uu adeegsado weerarada cirka ee diyaaradaha isbahaysiga Khaliijku ay ku qaadayaan xuutiyiinta Yemen. inkastoo warbixintu ay sheegtay in tan iyo 2018 loo adeegsan jiray garoonka diyaaradaha iyo saldhiggan militariga ee Berbere weerarada gudaha Yemen laga fuliyo, haddana cadeymo looma hayo xogtaasi. ballaarinta saldhigga militariga ee Berbere ayaa weli socota, iyadoona dhawaan lagu rakibay qalab cusub oo loo adeegsada diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dagaalka.
Now, in what's being seen as an historic agreement, Israel and the United Arab Emirates have reached a deal to normalize relations. Donald Trump made the announcement. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in imaaraadku uu waqtigan ku howlan yahay sidii uu heshiis u dhex dhigi lahaa Somaliland iyo Israel. tan iyo 2010kii Israel waxay ka mid ahayd dalal dhowr ah oo xiriir diblomaasiyadeed la sameeyay Somaliland, inkastoo aanay si rasmi ah u aqoonsanayn madaxbannaanida ay ku dhawaaqday Somaliland. danaha Israel ee gobolka ayaa kor u kacay kadib markii Xuutiyiintu ay bilaabeen in ay weeraro toos ah u adeegsadaan maraakiibta Israel xiriir kale leh si loogu jawaabo xasuuqa joogtada ah ee ay ka wadaan marinka Gaza. Israel waxa ay hore iskaashi dhinaca sirdoonka iyo militariga ay u lahayd istaga Imaaraadka Carabta iyadoona caadiyeysay xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Israel. laakiin tani waxay sidoo kale ugu faa'iideystay Israel in ay ku xoojiso saameyntooda ay ku leeyihiin gudaha Somaliland. waxayna hadda ka fakarayaan in sidoo kale ay ballaariyaan joogitaankooda dhinaca militariga ah ee gudaha Somaliland. To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum. Peace unto thee. joogitaankan dhinaca militariga waxa uu Tel Aviv u ogolaanayaa inay si toos ah ugu jawaabto weerarada Yemen halkii ay ku tiirsanaan lahayd wadamada reer galbeedka ee Mareykanka iyo Britain ay ugu horeeyaan kuwaasi oo maraakiibtooda dagaalka Yemen waqti xaadirkan ay wajahayaan caqabado dhowr ah. marka laga soo tagay xiriirka Xuutiyiinta Yemen iyo kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ay Washington hadda wajahayso waxa kale oo jira cadaadis dibadda ah waana isballaarinta Shiinaha ee gobolka gaar ahaan Djibouti iyo dalalka Geeska Afrika. joogitaanka Shiinaha ee sii kordhaya ee gobolka ayaa Washington ku noqday walaac hor leh. tan iyo sanadkii 2017 Shiinuhu waxa uu ka howlgalayay saldhigga militariga ugu ballaaran ee uu ku leeyahay dalka Djibouti oo ah dal jaar la ah Somaliland. Djibouti oo fursadan aragtay ayaa sidoo kale waxay ballaarisay xiriirka tooska ah ee ay la leedahay xukuumadda Beijing iyadoona ka weecatay reer galbeedka. Washington ayaa aqoonsiga Somaliland u aragtay xeelad kale oo laga hortagi kara saameynta Shiinaha ee sii kordhaysay ee gobolka. waana istiraatiijiyad kale oo lagu xusay warbixinta mashruuca 2025 ee Mareykanka ee uu gacanta ku hayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo qeexaysa siyaasadda madaxweyne Trump ee Geeska Afrika. warbixinta waxay u ololeynaysaa in Somaliland la aqoonsado si loo wiiqa saameynta Shiinaha ee gobolka gaar ahaan Djibouti. dokumentigan oo ka kooban 922 bog qaaradda Afrika oo dhan waxaa diiradda la saaray laba dal oo muhiim u ah danaha Mareykanka waana Djibouti iyo Somaliland. wuxuuna soo jeedinayaa in aqoonsiga qarannimada Somaliland uu yahay deer xoojin kara jiritaanka sii xumaanaya ee Mareykanka iyo Djibouti isla markaana looga hortaga danaha Shiinaha ee gobolka. midowga Afrika iyo quwadaha kale ee caalamka ayaa aaminsan in ilaalinta midnimada dhuleed ee dalalka gobolka ay muhiim tahay. aqoonsiga Somaliland uu albaabada u furi kara dhaqaaqyo kale oo gooni u goosta kuwaasi oo raadinaya inay ka furtaan dalalka ay hadda ka tirsan yihiin. talaabo kasta oo loo qaada aqoonsiga madaxbannaanida Somaliland kaliya kuma xadgudbaysa madaxbannaanida Soomaaliya sidoo kale waxay gobolka gelin kartaa xaalad qalalaasa khatar ah ayuu yiri wasiir dowlaha amuraha dibadda ee Soomaaliya Ali Maxamed Cumar Ali Balcad oo wax laga weydiiyay qorshaha Washington ee aqoonsiga Somaliland. dowladda Imaaraadka Carabta si ay ugu dhalaasho dalaalnimadeeda waxay dalkeeda laba jeer ku casuuntay madaxweynaha dabayaaqadii sanadkii tagay la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cire iyo wafdi uu hogaaminayay. markii ugu horeysay waxay tageen Abu Dhabi 26 bishii January ee sanadkan 2025. mar kale waxaa lagu casuumay oo ay ka qayb galeen sanadkan 2025 shirweynihii dowladaha adduunka halkaasi oo Imaaraadka Carabta ay Somaliland ugu diyaarisay madal si madax bannaan ay ugu sharaxda qadiyadeeda gaar ahaan madax bannaanida ay raadinaysa Hargeysa.
tallaabadaasi iyo fursadaha imaaraadka carabtu ay siiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda federaalka Soomaaliya si adag uga carootay taasi oo sii xumaysay xiriirka imaaraadka carabta iyo Muqdisho oo sanadihii la soo dhaafay sii xumaanayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in aan marna loo dulqaadan doonin faragelin kasta oo imaaraadka carabta iyo dalalka caalamku ay ku sameeyaan qarannimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga sideenaba dee Somaliland mowqifkeenu waa cad yahay dowladda Soomaaliya waa cad yahay weligeedna waa caddaa Somaliland waa qayb ka mid ah Soomaaliya waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan maamul ha ahaato ama shacabku ha ahaadee way jiraan taasi dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in wada hadal iyo lagu xalliyo qaab maaragtay isfaham dad Soomaaliyeed baan wada nahay hal dal baan wada nahay inaan sidaas ku xallino runtii tegistaas dee waa la tagaayo dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan Somaliland qayb ka mid ah Soomaaliya waxyaalaha qaarkood dowladda Soomaaliya ay hadda tallaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dee dalka Soomaaliya anagu faragelin uma ogolin in dadkiisa la kala qaybiyana ma ogolin marka mana ahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si negative ugula jirjira taasna dee siyaasad guud baan ka yeelanaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba dhankeeda Somaliland waxa iyadu u muuqataa inay diyaar u tahay sidii ay ugu faa'iideysan lahayd arrimaha aqoonsigeeda oo Mareykanka iyo dowladaha kale ay ku dhawaaqeen haddii xukuumadda Muqdisho aanay wax ka bedelin siyaasadeeda arrimaha dibadda ee haatan aan jihada loo raac lahayn waxay u badan tahay in sanadaha soo aadan xukuumadda Hargeysa ay heli karto fursad mar kale ay kaga soo muuqata fagaariyaasha caalamka geesta kale waxay u baahan tahay xukuumadda Hargeysa in ay taxadar badan ka muujiso khataraha ku lamaan aqoonsiga ay u durbaantumayso iyadoona ay tahay in laga feejignaado in saldhigyada Mareykanka iyo xulafadiisa ee berbere laga weeraro kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen haddii xulafadan ay weerar ka dhan ah jabhadaha Xuutiyiinta Yemen ay ka qaadaan gudaha Soomaaliland waxa ka dhalan karta cawaaqib xumo iyo halaag soo wajaha amniga Somaliland oo hadda iyadoo astaan u ah gobol muhiim ah isla markaana amni ah geeska Afrika ay aan xasiloonin waqti xaadirkan strategic bay doonayaan marka iyaguna inay gacankaas baabalmandab iyaguna ay saameyn ku yeeshaan Israa'iil waxay qaati ka taagantay Xuutiyiinta waxay qaati ka taagantay jabhadaha maaragtay Yemen ka jira oo maraakiibtoodii commercialka ahayd iyo ganacsigoodii iyo kuwa ciidanka intaba maaragtay halis ku ah si kastoo iyaga ay u duqeeyaan ama si kastoo ay wuxuu yeelaan jabhad qaawan waxba kama qaadi karaan waana dhul istiraatiijig oo buuralaya maaha dhul ay maaragtay awood military ku xakameyn karaan iyaga iyo Mareykanku toona saas aawadeed waxay noqotay arrin kale oo looga fikiray meel kale oo maaragtay safety-ga lagu ilaaliyo inay noqoto ama markay ugu liidato inay noqoto meel ay danahooda amniga ay ka ilaalin karaan iyaga iyo Mareykanku baabulmandab iyo gacanka cadmeed labaduba waxay u yihiin albaab aad u khatar haddii weliba ay ifafaalaha ama dagaalada uraya ay maaragtay ay sii xoog bataan Hormuz oo maaragtay marinka kale ah waa laga soo weecan doonaa waxa la mari doonaa baabulmandab arrintaas waxay u baahan tahay in maaragtay ay helaan meel ammaan ah waana sababta Ingiriisku xitaa u yimi Somaliland kaliya waxay ahayd inuu ammaanka ciidamadiisa India iyo dhinacaas u baxaya uu sugo meeshan waa meel marka aan laga maarmi karin dowladahaas oo dhan kama maarmi karaan Turkigu kama maarmi karo Mareykanku kama maarmi karo Israel kama maarmi karto Ethiopia kama maarmi karto dhammaantood waxay jecel yihiin inay qayb ka noqdaan at the same time hadana kuma soo xadgudbi karaan xuquuq umad leedahay oo meel ka jirta marka waa in entity-ga la macaamilaan jira taasa keentay marka in ay maaragtay danayntan xoog badan ee Mareykanku iminka ay soo celiyeen ee aan hore u jiri jirin inaad xasuusto magaca Cabdijaliilow doorashadii ugu dambeysay ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu kula wareegay xilka waxa ka qayb galay safiirka Mareykanka waa miisaan aad u sareeya oo tusinaya heerka uu siiyey siyaasiyan safiiradu kuma socdaan tala ay iyagu leeyihiin iyo rabitaan waxay ka turjumayaan qarankii ay ka yimaadeen saas aawadeed waxay kuu muujinaysaa in isbeddel uu jiro xoog badan
oo ah danaynta ay danaynayaan mandaqada gobolkaas ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto. haddaba muqdisho iyada oo u sii maraysa xulafadeeda caalamka ma hor istaagi kartaa aqoonsi la aqoonsada maamulka Somaliland? tani waa su'aasha ay dad badan waqti xaadirkan isweydiinayaan. haddii sidoo kale Washington aanay qiimeyn tallaabada ay ku aqoonsanayso Somaliland, waxay sidoo kale cawaaqib xumo ku yeelan kartaa xiriirka Mareykanka iyo gobolka. Masar oo ah xulafo muhiim ah oo Mareykanku ku leeyahay gobolka ayaa xiriir adag hadda la leh Soomaaliya sabab la xiriira walaaca laga qabo biyo-xireenka gaadhka ee Ethiopia. Masar oo ka jawaabaysa isafgaradkii Somaliland iyo Ethiopia ayaa sanadkii 2024 iskaashi dhinaca amniga waxay la gashay Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale go'aan ku yeelan karta tallaabo kasta oo Washington ay ku doonayso inay ku aqoonsato Somaliland. Muqdisho waxay sidoo kale xiriir wanaagsan la leedahay xukuumadda Ankara oo ay adag tahay in baaqiyadeeda ay dhagaha xilligan ka fureysato Washington. halkan sidoo kale waxaa isku arki kara Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka. waxaa sidoo kale is arki kara Ankara iyo isu taga Imaaraadka Carabta. Ankara iyadu mabaadi'deeda waa ilaalinta madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mar kasta in la ilaaliyo danaha istiraatiijiyadeed ee ay ka leedahay gudaha Soomaaliya. halka Imaaraadka Carabta mabaadi'deedu ama aragtideedu ay tahay flash with cash. tallaabada kale ee xukuumadda Muqdisho ay qaadatay si ay ugu hor istaagta in Somaliland loo aqoonsado dal madax bannaan waxay ahayd warqadii 16 bishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u diray dhigiisa Mareykanka Donald Trump, taasi oo uu ugu soo bandhigay in ay la wareegaan saldhigyada muhiimka ah ee dhinaca militariga ee ganacsiga ee gudaha Soomaaliya. warqadan ayaa lagu yiri Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay si gaar ah u siiso ciidamada Mareykanka saldhigyada ciidamada cirka ee Balidoogle iyo sidoo kale dekedaha Berbera iyo Boosaaso. dadka u dhuundaloola arrintan ayaa sheegay in raqaaqa Muqdisho uu daaranaa sidii indhaha Washington loogu soo jeedin lahaa Muqdisho isla markaana loo baajin lahaa dhaqaaqyada Washington ee Hargeysa, isla markaana loo dareensin lahaa in sharciyadu ay taala xamar. warbaahinta Maritime Executive oo warbixin ka qortay arrintan 30 bishii Maarso ee tagtay ayaa dalabka iyo soo jeedinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaantay in lagu micneeyay mid qoos ah oo lagu joojinayo in gobolkan uu ka go'o Soomaaliya inteeda kale isla markaana uu noqdo dal madax bannaan. inkastoo dadka wax falanqeeya ee Afrika bariga dhexe iyo duniduba ay ku tilmaameen wadaxaajoodada u socda Hargeysa iyo Washington fursad dahabi ah oo Somaliland ay raadinaysay 34 sano ee la soo dhaafay, haddana waxay ka digayaan in tani ay halis gelin karto xasiloonida gobolkan oo markii hore la daalaa-dhacay dagaalada kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo sidoo kale abaara soo jiitamay. waxaa kale oo dadka isweydiinayaan in Muqdisho ay dadaalkeeda xoojin karta isla markaana ay ka hortagi karta tallaabada Washington ay ku doonaysay in ay ku aqoonsato Somaliland. waxaa la isweydiinayaa xukuumadda Muqdisho gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda awood ma u leedahay in ay hor istaagto Washington? tani waa su'aasha ugu mudan ee waqtigan miiska saaran, balse waxaan shaki ku jirin in Washington ay ka go'an tahay in xiriir toos ah iyo mid dadbanba ay waqti xaadirkan la samaysata Hargeysa si danaheeda gobolka ay u fuliso. maxay kula tahay adigu daawa fadlan ka mid noqo Cabdi Show. waxaan soo gudbinaa warbixino iyo warar la xiriira amuraha Soomaalida iyo caalamka isla markaa ay dhacayaan iyaga oo faahfaahsan falanqeyntooda si nabad geliyo.